magacaygu Cabdiraxmaan Maxamuud Kulane waxaan ahay agaasimaha ururka Indhoolayaasha Soomaaliyeed SAP maanta waxaan halkan u joogaa inaan idin soo gudbiyo taariikhda iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay farta bareelka. haddaba macquul ma tahay in uu jiro aqoonyahan aanan kala saari karin cadaan iyo madow isla markaana si caadi ah sida dadka kale noloshiisa waxbarashada u hagaajiyay ama u hormariyay. sirta saxda ah ee ka dambaysa sheekadaasi waa in farta bareelka ay tahay far ay dadka aragala ay isticmaalaan iyagoo aanan qof kale ku tiirsanaanin marka laga hadlayo ku lug lahaanshaha goobaha waxbarashada. haddaba fartan bareel waxaa markii ugu horeysay isticmaali jiray oo adeegsan jiray askartii Faransiiska. systemkaas xilligaas waxa uu magac ahaan u watay night writing ama akhriska habeenkii. iyadoo taasi ay jirta ayaa waxaa soo ifbaxay wiil yar oo araga beelay isla markaana Faransiis ahaa kaas oo lagu magacaabayay Louis Braille. farta bareelka markaan ka hadalno waxa ay ka kooban tahay god ka kooban 6 dhibcood leenkiiba 3 iyo 3 ayuu leeyahay, taas oo ay dhammaan ku kulmayaan ama markii la rabo in la qoro xarfaha nooc kasta lagu qori karo. nidaamkaasi waxa uu horseedayaa marka la qoro dhibcahaas mid kasta oo kamid ah qalinka dadka aragala loogu talagalay lagu duleeliyo in dhanka kale uu ka sii daayo ama uu u buurto buurnidaas oo horseedaysa in qofka aragala gacmihiisa ama farihiisa waliba fartan maaragtay suulka ku xigta sida ugu fiican uu ugu aqriyo wax kasta uu qoray. iyadoo taasi ay jirto dunida saan ognahay waxa ay u wareegtay duni digital ah. dadka aragala kama aysan harin ku lug lahaanshaha dunida digitalka ah marka laga hadlayo kuwa ku nool Soomaaliya. waxa ay hadda dhalinyarada aragala ee dhigta dugsiyada sare ama jaamacadaha ay isticmaalaan si madax bannaan kombiyuutarka kaas oo noloshooda waxbarashada wax badan ka bedelay, sida inay iyaga windowga ka bedelan karaan, inay iyaga ay awoodaan in maaragtay waadka iyo sidoo kale excelka iyo powerpointiga documentiskaas hadba qofkii wixii laga rabay uu si madax bannaan isagoo aanan qofna ku tiirsaneyn uu adeegsado. sirta iyo sababta saxda ay ka dambaysa kombiyuutarka in si fudud oo madax bannaan dadka aragala ay u isticmaalaan dabcan waxa weeye inay dadka aragala isticmaalaan ama uu ku jiro kombiyuutarka ama lagu shubo software kaas oo lagu magacaabo JAWS oo ay dadka aragala dhageystaan. waxa uu JAWS ka sameeyaa screenka waxa saaran wax kasta ay yihiin, qofkii waa uu akhrinayaa, qofkii aragala aan waa uu dhageysanayaa. sidaas ayuu uga faa'iideysanayaa in uu kombiyuutarka si madax bannaan u isticmaalo. Hormuud Salaam Foundation waxa ay horseed u ahayd kacdoonkii guuleystay ee 25 jirsaday dhallaanka Soomaaliyeed ee aragala waxbarasho iyo deegaan ku habboon in ay helaan si la mid ah dhallaanka kale. waxa ay taasi meesha ka saartay perceptioniskii qaldanaa ee laga haystay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aragala ama ruux kasta oo aragla kaas oo aan arki jirnay mar kasta oo la arko qof aragla oo wadada maraya in la siiyo sadaqo iyo wax la mid ah. bulshada hadda waxa ay u muuqataa kadib taageeradii Hormuud Salaam Foundation in ay fikirkaas meesha uu ka baxay dadka aragala ana loo arko dad caadi ah oo bulshada ka mid ah.